muxuu tarayaa daa 10 diyaarsado ma maxay ujeedada 10 aan diyaariye maxaan ka faa'iiday 10 diyaariye waa marka horeysa waxa uu yahay waa furaha meesha u socoto ki meesha u socdo ay cadda marka 10 soo diyaarsay wuxuu ii baaqaaminayaa waqtiga hadii ka hadda meelan ku dhacaya 10 waa inuu ii baaqaamiyaa waqtiga uu tala galay meeqa saac la qaataa halkaas 4 daqiiqo أنا كنت ألقى 10 دقائق 10 إسكان فرق وأنت لقلي شقيد وإيك الله بسنتهي شقا هبل مدانا كهر رئيسة تنا كهر رئيسة وإيك الله بسنت وح عن قمانة وكلا قانا بلان كده كلي كل سوني ما الله وسكر سونة معنا وحصاد ديار سدانا هي وغير ذلك ما دبيسه سؤالها اللي بيدينك ما بقيه وكو بل كورها معلم 10 مدة دقيقة جري 10 صوبات ديار صدق كي سنة كهربوك سنة كهرباء هستا أو ديارتين أما كي كوري كانوا كوي 10 أنت اسمكم في أنت 10 ديار أنت بس ما عليك استوحوا أنت أرضي معها حلقي معها أحبها سكر ليه 10 أنت مو أنا 20 سنة كهر كان دقيقة ما دقيقة 10 سنة كهر كان دقيقة ما دقيقة waxaa u baahan inaan wax cusub la jaan qaado oo ardada la jaan qaadaan wixii cusub soo kordha ee maadada ku saabsan marka leesankayga ima dhibaysa marka su'aalo in la weydiiyo internet laga weydiiyo meelka laga weydiiyo ma dhibaysa oo kala soo kalsoonay way maanta waa soo diyaarsaday hada khudbada jumcaha lagu qoray waxaa la yiri khudbada jumcaha gaalada bari ku qoran hay ma iska imaan lahaydeen maalinkan ma iska imaan lahayd khudbada jumcaha wali waa inaa kor ka akhrisaa waxay ku keenaysaa inaad soo diyaariso kadibna si fiican u soo barato waqti badan geliso ninba wuxuu arkay Soomaalka hadal wuxuu yiri khudba wuxuu ka hadlay fagaara ka hadalka iyo fagaara ka naxida anagoo qaadayna tababar baa waxa la yiri maalinta khamiis weey bari jimcaha ku qoran tahay khudbo warxaba ima diyaarsane waa ku qoran tahay adeeg ku taala dadku ku sugay barito wali ninka meesha jooga wuxuu igu yiri midna waa kala talinaya wax warqadaha soo qaadan wax warqada hadaad warqad soo qaadato waliga warqad uma hayso doontaa ugu waliga warqad ba dhigi doontid waa diyaarsaday warqadan ku diyaarsaday waxayga dhan وبعدين كوران كسو قبته سو قيبيده دنبا ايش هرمي ما انت سا او بلاابay wax warqada kama akhriyo yiri laakiin hadaan warqad baan inta ku bilaabi lahaa warqad uma hayn lahaa kalsooni u qaba marka adoo khudbad jumcaha akhrinaya ama meel ka khudbeynaya qodobadana aysan ku diyaarsanayn khalqala ku galaya معلم غلاسك waxaa fadhiya arday maadada aad u yaqaan maadada tarbiya dhigta laakiin waa yaqaan aabihiisa sheekha caalim ah waa loo akhriyo waxaan dhanba madaahibtii kala yaqaan ardada galaaska macallimiintu way isu sheegeen war galaaska waxa ku jira macallin yar iska ilaaliya waa la isu sheegay qaar waxay dhaheenba macallin kamida wallahi ninkaas sida u qaban lahaa waa la ahay baan ee seel la yeela وانا ازدياريا وين اللي من ارضك waxay weydiinay macallin xisaabaad jooga meeshan geometry dhigaya goob ardada baray iyo waqooyiga iyo jihooyinka iyo ardayga gacanta xisada ku jirta waxyaalaha qaar kood ma aan soo fiirin qasab kulli ma soo fiirin karnaa ma soo fiirin karo laba su'aal barkii degdeg lagu weydiiyay laba su'aal إلا واحد كهلسة لولك دقيه واحد كهلسة تتيتكي خطوط الطول والعرض واحد كهلسة وتي شجراني واحد سيا حمر ماشي كنت عليه لندنية مكة واحد كهلسة أرجع عن معنا وحنكون دينية تايم كواحد لو حسابه أما وقت حل واحد لو حسابه ترى هذا عادي طبعا أكو حسابنا طبعا بركة لجارة ويبو حسنته
maxay saacaduhu marka ay 60 gaaraan u buuxsamaan oo 60 loogu xiray 60 iyo 1 ma jirtee 60 xagga la mariyay 1 mid cusub waaye tirada tirsiimada caadiga 10 weey tirsiimada waqtiga iyo zamankuna waa 60 maxaa lagu saleeyay 60ka maalinka juqraafiga la weydiiyay ama xisaabta dhigay waa inaad ku xisaabta wixii 60 lagu deesgareeyay ila 59 sakana daqiiqada buuxsantay saacada buuxsantay mid kala bilaamaysa 60 casharkaas ma aad soo fiirin mid kala gacantaaga waxa macaan la yaabanahay masaajidan maalin ku tukanay imaamku meeshu ku aadan yahay waxa la dhahay waa mixraabki waa qibladii masaajidku waa dheer yahay saf dheer weey safkaas aad u dheer inta imaamka ku aadan kaliya salaadooda jirta inta kale waxa waaye qiblada ma haystaan be xariiq dheer weey qiblada soo hal meel maaha kuwa kala banaanka iyo qiblada arinta fahamsi anna gooba saa wareejinaysi hada waxyaalaha qaarkood ay noo diyaarsanaa wataan dhehayna ardada waa iska eriyayna waa ku xanaaqayna waa maalinkaas wax soo diyaarsadaa wataan dhehayna waa inaan cilmi dheeraada leenahay anaga oo ka duwan kii ardada oo waxaas aan inta ka fakarno maxaa inta wax ka iman karaan markaas kalsooniya leedahay ka jawaab karno su'aalaha saddex kama jawaabayo idinka ka jawaabi doona ardada markay idin weydiiyaan ka jawaab saasoo ma hada ka jawaabna maya idinka yiri midda hadda mixraab ku saabsan taas waa iska fududahay midda oo ku saabsan waxa ila tahay marka xajka la joogo dadka dhan waa ku wareegsan yihiin sabab wareegsan marka la joogo hadda wax kala ma wareegi un baan soo gaaray dhagana wareegi dheeraa markuu wareegu dheeraadana saf straight line oo ekaana xariiq toosan wareegaas wareegsan mid kamid aan nahay laakiin markuu wareegu dheeraado saf wuxuu ekaanaya marka waxa laga yaabaa dhibic ka yar inaan ka mid nahayba Soomaaliya dhanba dhibic ka yar marka leenka wuxuu noo ekaana inay toosan tan kalena idinka waa arday macallinka dana ku weydiiyay maanta macalimiinta juqraafiga Allah hayay intay qoraxda ka soo baxda intay u dhacda dayaxa waa kana waxa soo lagu weydiiyay gacanta taagan macallin bishii dhaweed ee Ramadaan markay fiiriyeen galbeed bay ka soo baxday halkan ka raadinay galbeed dadka dhawda waa taa bishii dhalatay macallin bil baa galbeed ka dhalata waa adigina dhihi jiray bari ka dhalatay say bil galbeed uga dhalatay bila inta soo baxday misalan noqotaya macquul maaha ee nafahamsi waana dhul adag ku taaganta waana waxa ku diyaarsan yihiin hadii kale haye galaaska banaanka macna ga dhaaf banaanka bisha taale bisha ay raacine galaaska iska jooga ma banaanka taa bisha Ramadaan bishi Shawaal baa dhalatay wata iidi bishi waa dhalatay hadana way dhacday oo macallin bishaan aqal badana saa inta u soo baxda misana noqonaysa Ramadaan mubaarak Eid mubaarak hadana iska dhacaysa macallinka laga rabaa juqraafiga dhigay yama waxa ku saabsan time-ka iyo ka dhigay zamanka inuu u diyaarsantaa laga rabo macallinka xisaabta waa laga rabaa sida qaybtiisa su'aalaha lagu weydiin karaa naga dhaaf waxaas yajab qumane adigta ardayku mid macallin waa ku ahsan noo samee waxa quman noo dhig waan qumaneyn naga daa yajab aan qumaneyn naga daayay أنا ماشي هقولني واحد قمنا لا برا واحد قمنا نقدر معلم سدح لقول فته واب فهميه سدح إبر لقول فته عن ربع تابسي سدح إبر لقول فته مثال السي سدح أفر لقول فته واب قرتي وسدح صلاة ومن أفر ركعة وقرتي وسدح كرسي أو من أفر لقوده لكن معلم واحد كهرباء سدح لقول فته إبر تابسي مال إكو تعلق magaalada iga tus shay aan taaban karo inaan isku dhufasho wax la xafido ma aha ileene ardayga inaan xafido uga tala gelin taabsi macallin saddex eber lagu dhufto فانا taabsin karno marro suuqa tageena aan taabsin karno markay ugu yartahay hada awal sambuus ugu sheegaysta saddex sambuusa oo min saddex geesa waa sagaal hada inaan keenna saddex bur ah oo min meeqa geesa ii sheega gees ma leeyihiin maya saddex qara oo min meeqa gees ma leeyihiin ana laga rabaa
markaan leenahay macallinku ana wax dheeriya akhriyaa wax dheeriya bartaa waxaas waa in meel buug arday kuma yaalaan kalsoonida waa dhaga dhumaysa markaas xiisa gelinta iyo ardada inta casharkaaga ardada kor u saka maalinka sabab ugu darsamay ardayeen tusaalooyinkaas oo dhan maada kasta waa laga rabaa sheekhi la sheegay ee kitaabka akhrinayay ee eray dihnun ay ku dhigtay dihnun aku dhigtay waxay tahay dihnun marka dambe wuxuu yidhi dihnun dagab baa fuulay ardada iskaga qaateen dihnun inay tahay dagab baa fuulay laakiin dagab baa fuulay asaga ka tabaqlan tahay soo ma saas marka waxaan la weydiiyay dagab naga saaran yihiin annaga naga rabaa dagab qaad ka qaadno